Waxaan maanta idin tusayaa sida ay u egtahay marka dad caadi ah ay la tartamayaan qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican dunida, iyagoo u tartamaya boqolaal kun ilaa malaayiin dollar. Waxaan idin ballan qaadayaa in muuqaalkan maanta idin xiise geli doono, idinkana yaabin doono. Muuqaalkan waxaad ku arki doontaan halyeeyo wajahaya ciyaaryahanno dugsi sare ah, ninka ugu dheereeya dunida oo la tartamaya dad caadi ah, iyo Ashow Speed oo isku dayaya inuu caddeeyo inuu yahay qofka ugu dheereeya internetka. Laakiin taasi ma ahan oo keliya qaybta ugu xiisaha badan, sababtoo ah dhammaadka muuqaalkan taageero nasiib leh ayaa fursad u heli doona inuu kor ciyaaro Cristiano Ronaldo. Haddii uu ka badiyana waxa uu gurigiisa kula tegi doonaa $1 milyan. Wax kasta ayaa hadda soo socda, waxaad arki doontaan dhammaan waxyaabihii ay waalidaha ay isku dayeen inay tijaabiyaan. Ka hor inta aanan bilaabin, waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo dhammaan asxaabta. Waad ku mahadsantihiin commentiskiina iyo fariimihiina dhiirigelinta lahaa ee aad ii soo dirteen. Subscribe-tiina, like-tiina iyo taageeradiina joogtada ah ayaa sabab u ah inaan channelkeena kor u kaco. Mahadsanidin. Tartankan ugu horeeya wuxuu dhexmari doonaa Tom oo ah qof professional ah iyo Jake oo ah qof normal ah. Labadoodu waa inay kubadda ku dhuftaan buufin ku xiran goolka. Qofkii ugu horeeya ee dilaacay 4 buufin ayaa wuxuu ku guuleysan doonaa $100,000. Si tartanka uu u noqdo mid cadaalad ah, buufinada Tom aad bay ugu yaryihiin kuwa Jake. Tartankii ayaa bilowday. Tom ayaa si degdeg ah u dilaaciyay buufinkiisii ugu horeeyay, isagoo oo muujiyay kalsooni iyo deganaansho. Laakiin Jake ma uusan niyad jabin, wuxuu si xoog leh ugu jawaabay dhowr darbo oo sax ah, wuxuuna tusay qof walba inuusan si fudud ku guuleysan karin. Jake waxa uu sameeyay soo laabasho cajiib ah, wuxuuna barbara la galay Tom. Jake ayaa ku guuleystay tartankaas, halkaas Jake wuxuu u muujiyay dagaal iyo adkaysi. Dad badan ay la dhaceen, annagana waxaan la dhici doonaa laagtaada. Challenge-ga labaad ee tartankeena, ninka ugu dheereeya dunida. Haddii aad u malaynayso in tartanka hore uu ahaa mid adag, kan hadda ayaa ka sii yaab badan. Dhanka hore waxaa taagan ninka ugu dheereeya dunida, dhanka kalena waxaa jooga nin aad u culus balse rajo weyn ka qaba tartanka. Si fursad loo helo, wuxuu la ogolaaday inuu meel hore ka bilaabo tartanka si uu ugu tartamo $40,000. Seeriga ayaa bilowday oo waxa uu ku bilowday si xoog badan, waxa uuna sameeyay hoggaan qof walba ka yaabiyay. Waxayna u muuqatay guusha inay gacantiisa ku dhowdahay, laakiin ilbiriqsiyo gudahooda masaafadii ayaa bilaabatay oo inay yaraato. Dadkii oo dhan ayaa istaagay, xiisadii garoonka ayaa cirka isku shareertay. Tallaabo kasta oo la qaado, guusha dhinac ayay u leexanaysay. Kadib ilbiriqsidii go'aanka ahayd ayaa timid, si lama filaan ah ayaa loo dhaafay. Challenge-ga saddexaad, Ashow Speed iyo ninkii ugu orod badnaa ayaa la isku bilaamiyay, laakiin hadda xaaladdu way sii kululaanaysaa. Waxaa la wacay Ashow Speed, waxaa loo sheegay haddii uu ninkan ka badiyo inuu ku guuleysan doono $100,000. Ashow Speed ayaa isla markiiba aqbalay. Markii uu tartanka u bilowday, Speed waxa uu sameeyay bilow aad u xooggan, xitaa dhowr tallaabo ayuu ka hormaray ninkii ugu orodka badnaa. Waxayna u muuqatay in Ashow Speed uu guuleystay, laakiin markii dib loo eegay kaamirada waxaa soo baxday inuu u guuleystay ninkii ugu orodka badnaa dunida. Waxayna ahayd mid ka mid ah dhammaadadii ugu xiisaha badnaa ee aan arko. Challenge-ga afaraad, Ronaldo iyo Khalid. Ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay waqtigii qof walba uu sugayay, Cristiano Ronaldo iyo taageero nasiib badan ee lagu magacaabo Khalid. Miiska waxaa u saaran $1 milyan. Qof kasta waa inuu kubadda ku dhuftaa bartilmaameedyo ku yaala goolka. Tartankii ayaa bilowday. Si lama filaan ah, Ronaldo waxa uu khasaariyay dhowr darbo. Dhanka kale, Khalid wuxuu si qurux badan u dhaliyay labadiis kubood ee ugu horeysay. Isla markiiba waxa uu hoggaan ku qabtay 2-0. Dadkii oo dhan ayaa yaabay. Ronaldo wuxuu isku dayay inuu soo laabto, laakiin wax walba waxay ku xiran yihiin darbada ugu dambeysa ee Khalid. Haddii uu dhaliyo, wuxuuna noqon doonaa milyaneer. Khalid ayaa kubaddii laaday, qof waliba neefta ayuu cishtay. Kubaddii waxa ay si toos ah ugu dhacday bartilmaameedkii. Sidaa darteedna waxaa guuleystay Khalid oo ku guuleystay $1 milyan. Haddii aad jeceshahay tartamo waaweyn, challenge xiiso leh iyo sheekooyin yaab leh, ha ilowin inaad subscribe saarto. Mahadsanid.